gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa sheegay in dib u eegis lagu sameyn doono qodobo ku jira xeerka kufsiga oo la sheegay inay ka hor imanayaan diinta Islaamka. Gudoomiye Baashe ayaa sidaas ka sheegay kulan ay wasiirka diinta iyo waqaafta Somaliland iyo qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Somaliland maanta shir gudoonka golaha wakiilada kula yeesheen magaalada Hargeysa. shir gudoonkii xildhibaano waxaan isugu nibi waxa weeye wixii xaalkii kufsiga xeerka kufsiga oo maalmahan oo dhow hadalkiisu taagnaa waxa weeye xeerka wuxuu maray golaha wakiilada golaha guurtida wuxuuna ku dambeeyay madaxtooyada xeerkaasi uu dhaqan galay waxa ka soo baxay waxa weeye qodobo culimadu aad ogeydeen ay yiraahdeen waxay ka hor imanaysaa shariicada islaamka dad islaamayna nahay wixii shariicada islaamka hor iyo dastuurkeena xaraantimeeyay inuusan dhaqan gelin wixii qodob ahaa ee ka hor imanayay waxaan ku heshiinay culimada inay soo qoraan la isla eego wixii shariicada ka hor imanaya in laga bedelo oo laga saaro anaga culimada iyo guddi culimada guddi wasaaradda waqaafta kariiqaanka guud guddida shuruucda ee golaha waxay isla eegayaan qodobada ka hor imanaya shariicada islaamka wixii shariicada islaamka ka hor imanayana waa wax kama jiraan waa laga saaraya qodobada sharcigana golayaasha sameysay dad islaamaynu nahay wixii dastuurku yahayna waa lagu dhaqmaya waanu ku dhaqmanaa marka waxaanu ku heshinay culimada inaanu isla eegno wixii shariicada islaamka ka hor imanaya aanu ka saaro oo isla saxno haddana waxaan ku soo dhiibayaa aad iyo aadna waxaan uga mahadnaqinaa culimada dalka xaq bay leeyihiin wixii shariicada islaamka inay hortaagaan oo ay yiraahdaan waxaasi shariicada islaamka annaguna waxa nagu waajiba culimada inaanu maqalno oo la tashano oo shuruucda la samaynayo intayn sharci noqon aanu kala tashano taana waanu ku heshiino markii aanu sharci samaynanaba wixii shariicada islaamka ka khuseeyo culimada waanu kala tashanana albaabka iyaguna waa u furan yahay albaabka madaxweynuhuna waa u furan yahay dalkana wada tashi baa lagu wada shaqeeyaa geesta kale wasiirka diinta iyo waqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed iyo qaar ka mid ah culimada dalka oo iyaguna dhankooda ka hadlay kulankani ayaa sheegay in qodobo ka mid ah xeerka kufsiga ay ka hor imanayaan diinta islaamka isla markaasina isla garteen shir gudoonka golaha wakiilada in dib u eegis lagu sameeyo si qodobadaasi xeerka looga tirtiro sida la sheegayna ay isu celceliyeen arrimihii dhacay iyo sida u dhaceen isla fahmeen maanta inay dantu ku jirto maslaxaduna ku jirto sidoo Ilaahay nafar subhanahu wa ta'ala in lagu dhaqmo mar walba culimadana waan ugu mahadnaqaynaa ugu mahadcelinaynaa sida ay runtii qiimaha badan naxariista leh ee iyaguna ay arrinkaas noola soo dhaweeyeen xukuumaduna sida ballanqaadka madaxweynaha uu ahaa waxaa runtii ka go'an in ay mar walba saxitaanka iyo toosinta iyo wadatashiga ummadda ay tixgeliso oo ay ku dhaqanto golaha wakiiladuna sida gudoomiyuhu afkiisa ka sheegay waxa weeyaan golihii aynu samaysanay inuu arrimaheena iyo danaheena guud wasaqo wakiilnaga ah inuu inoo habeeyo haddii taxeerar lagu dhaqo dhinac walba qoyska haday tahay haday dhaqaalaha tahay haday tahay horumarka dalka tahay xaq bay u leeyihiin wixii iyagu ay inoo arkaan inuu waafaqsan yahay shariicadana ay inoo soo gudbiyaan mar walba madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo markii laga hadlay xeerkan ee la yiri waxyaabo shariicada khilaafsan baa ku jira ogolaaday in dib loo celiyo oo wixii shariicada khilaafsan laga saaro saddexaadka golaha wakiilada gudoomiyaha ku xigeenadiisa iyo xildhibaanada kale ee maanta halkan nagu qaabilay inta la sheegayna aan isku afgaranay iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan inta ku darayaa hadalka waa la dhameeyay xeerarka bani aadamku ama dadku ay dejiyaan waa laba nooc wax shariicada ka hor yimaada iyo wax shariicada waafaqa ama aan khilaaf ahayn xeerka shariicada ka hor yimaada
allah ina abuuray baan inoo ogolayn dadka muslimiinta arrintoodu waa wada tashi waxaanu u mahadnaqaynaa ugu horeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala dad islaam ay naga dhigay waxaanu u mahadnaqaynaa shirgudoonka golaha wakiilada ee Somaliland oo isku dhanoo maanta halkan aanu kulan kula qaadanay oo lagaga wada hadlayay arrintii maalmahan miidiyaha iyo bulshada aadka ugu jirtay xeerka kufsiga inta uu gudoomiyuhu sheegay ayaanu ku heshiinay waxaanu ku heshiinay in inagoo wada jira dib aynu isla akhrino hadday tahay culimo hadday tahay garyaqaanka guud hadday tahay wasaaradda awqaafta hadday tahay golaha wakiilada dadka ugu qaybsan shuruucda dhammaantiin marka wax kaloo lagu darayaa ma jirto waxaa hadalku ku kooban yahay waxaa la isla garto la isla qaatay in dib loo akhriyo culimada nuqul la siiyo culimada iyo dhinacyada aan sheegay iyagoo isla jira in si wada jira loo akhriyo oo wixii dhaliil sharci xagga shariicada ku saabsan si wada jira looga saaro. maxamed aadan ismaaciil maxamed shiglan shabakada caalamiga ee Har Wanaag News Hargeysa.